Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa loo dhaafo mar kale inaan leh kusoo dhawaada casharada taxanaha ahay noo socday qayb ka mid ah sidaad la socoteenba waxaan ku duubnay Active Directory, Domain Services and DHCP and DNS. Marka waxaan hadda caawa aan halkaan maanta configuration ku sameynayna haddii la yidhaahdo DHCP oo ah Dynamic Host Configuration Protocol kaasaan sameyn doonaa haddii la yidhaahdo. Waxaan tegaynaa halkan ayaan keli ku leenahay maxaa yeelay right keli ku leenahay keli ku leenahay then waxaan sameynaynaa maadaama markii ugu dambeysa aanan sameynin dabcan aanan dhamaystirin waxaan sameynaynaa inaan maaragtay keli ku siino complete DHCP configuration ayaan keli ku siinaynaa kadib halkan waxaa wanaagsan dabcan in maaragta aad akhrisaan si macluumaadka maaragta aad ula socotaan labadan qeybba maaragta dabcan ayaa muhiim noo ah inaan ogaano oo maaragtay aan la socono oo ah DHCP administrators and DHCP user labadaas qaybood. Marka next ayaan leenahay next markaan idhaahno waxaan fiirinaynaa oon isha ku haynaynaa maaragta dabcan qaybtaas marka okay noo tahay commit ayaan leenahay commit markaan dhahno kalaasaan leenahay qaybtaas hadda halkaan kaga gudubno waxaan rabnaa inaan maaragtay configuration ku sameyno marka DHCP-ga marka waxaan tegaynaa tools ayaan tegaynaa kadib waxaan keli ku siinaynaa DHCP ayaan rabnaa maaragtay dabcan inaan configuration ku sameyno halkaanaan imaanaysaa marka waxaad keli ku maaragtay expand leedahay qaybtaas waxaan u soconaa IP version 4 marka keligaad ku leedahay dushiisa si aad sii ogaatid dabcan macluumaadkan oo dabcan muhiim ah. Scope is a range of IP addresses assigned a computer request a dynamic IP address. You must create and configure a scope before dynamic IP addresses can be assigned. Marka aad muhiim u tahay inta ay dynamic ahaanaysa maaragtay IP addresska maaragtay aan loo assign gareynin waxaa loo baahan yahay maaragtay in scope-ka IP addresska maaragtay range maaragtay loogu sameeyo marka halkan baa lagu sii sheegayaa marka dabcan intaan markaan ogaano right click ayaan dushiisa ku leenahay IP version 4 new scope ayaan dooranaynaa kadib waxaan leenahay next halkan aad bay muhiim u tahay marka waa inaan maaragtay scope-ka dabcan aan magac u bixinaa aan ku ogaano scope-ka aan sameyno nooca uu yahay marka scope test 1 ayaan ka dhigaynaa next ayaan leenahay qaybtan marka waa IP address range marka inaan IP addresska range gareyno waa marka
IP addresska ayaan halkan maaragtay ku habeynaa. waana muhiim dabcan. kana waxaan leenahay qaybta aan leynaa ilaa 200 aan ka dhigaynaa. waad waa class C samada sida automatic u qaatay. marka next ayaan leenahay. qaybtan waan gudbaynaa IP address. qaybtan IP address ma hadda ku dareyno, marka waan gudbaynaa next ayaan leenahay. qaybtan waa muhiim ayaduna dabcan. qaybta list duration specifies how long a client can use an IP address from this scope. marka ilaa inta leego uu isticmaali karo listiga hostiga ama clientiga ayay maaragtay hadda 8 maalmood ayaa ku maaragtay habaysan. marka by default waaye. hadda by default ayaan u daynaynaa haddii la yidhaahdo. next ayaan leenahay. qaybtan hadda miyaad doonaysaa in maaragtay aad samayso option. haddaan doonaynaa yestaan ku daynaynaa. qaybtan routerka qaybta by defaultiga maaragtay ku daraynaa default gatewayga. marka halkaasaan ku daraynaa. next ayaan leenahay. okay, qaybtan siday noogu maaragtay ayay ku darsan tahay. marka waxaan ku daynaynaa qaybtan waxaan ku daynaynaa IP addresskan ayaan ku daynaynaa. qaybtan aan ku daynaynaa. marka waxaan leenahay next. qaybtan waa ka maaragtay waa ka soconaynaa. next ayaan leenahay. qaybtan waxaa leeyahay do you want to activate this scope now? yes, I want to activate this scope now ayaan ku daynaynaa. next ayaan leenahay. finish ayaan leenahay. okay, halkan waxaan sameynaynaa marka dabcan waa sii fiirinaynaa. IP addresskii aan hadda soo maaragtay habeena waa kaas. marka domain nameka andowlife.com routerka IP addresskan soo siinay. waxaan sameynaynaa marka waxaan la tegaynaa right click aan ku leenahay. okay, refresh aan leenahay. okay, okay, waxaan leenahay marka refresh aan leenahay. kadibna waxaan leenahay restart ayaan leenahay. restart aan maaragtay soo sameynaynaa. marka
okay, so far so good. Address pool waan aragnay. Activate ayuu yahay, marka dabcan waan soo habeynay qaybtaas. Marka waxaan tijaabineynaa, waan fiirineynaa dabcan qaybta client-gaan tegeynaa. Marka waxaan gudaha u galeynaa maaragtay client-gaan maaragtay fiirino IP address-ka hadda aan maaragtay soo habeynay ma u qaadanaya dynamically ma u qaadanaya mase waxbaa ka qaldan. Marka waxaan galeynaa password-gaan galeynaa. Waxaan fiirinaa dabcan shaqadan tegeynaa properties. Hadda wuxuu u jiraa dabcan soo arkaysaan maliga hada ugu jiraa status. Marka dynamically ayaa maaragtay aan ku tegeynaa ku shaqeynaa gudaha yiraahdo. Obtain DNS server address automatically ayaa taa ku tegeynaa, iyo obtain IP address automatically markaasaan ku tegeynaa. Aan bus ku fiirineynaa okay aan leenahay. Okay aan leenahay. Qaybtaas ayaan baxaynaa. Marka waxaan sameyneynaa inaan fiirino dynamically inuu soo qaatay. Details haddaan gudaha u sii galnay, yes, sida halkan ku arkaysaan wuxuu toos u soo qaatay DHCP in hybrid way now. Waxay ka horna waxaad arkaysaan in uu dabcan ahay halkaas oo maaragtay noo ahay. Marka yes maaragtay enable noo yahay. Haddaad xasuusataan dabcan IP address-kan waxaad dareemaysaa dabcan inaan siinay IP address-yada aan siinay kii ugu horreeyay inuu ahay dabcan range markaan sameynayna range markaan sameynaynay IP address range markaan sameynaynay ayaan siinay oo ahay dabcan 192.168.211.155 kii ugu horreeyay weyaan. Kaas ayuu soo qaatay. Marka
dabcan casharkeenu wuxuu ma ahay really cashar aad u xiiso badan ayuu ahay oo ku saabsan DHCP-ga. haddii aan virtual IP address sii fiirino waa kaas dabcan oo dareynaysaa markaas macluumaadka halkan aan ku hayno dabcan waa dareemaysaan waxaad arkaysaan dabcan inuu DHCP-ga uu enable yahay yes yahay marka IP address-kiina run ahaantii waxaad halkan ku aragtaan waxa weeyaan networkii aad markaan gudaha usoo gelayna arkayseen inuu maaragtay uusan qaybta internetka uusan u gudbaynin marka hadda configuration ku sameyna qaybta serverka dynamically uu soo qaatay addresska oo DHCP maadaama aan configuration ku sameynay uu soo qaatay halkan waxaad ku aragtaan in hadda toos uu u gudbi karo internet halkan haddaad fiirinayseena calaamada saarid waa arkaysa laakiin hadda ma saara taas macnaheedu waxa weeyaan way noo hagaagtay qaybtii configuration sameynay sidii loo baahnay ayay howsha noogu dhacday dhab ahaantii maasha allah weeyaan waxaan kusoo gabagabeynayaa casharkeena maanta xiisaha badnaay ee ku saabsanaaday sida loo configuration loogu sameeyo DHCP oo macnaheedu yahay in client-ga uu ka soo qaato IP address-ka serverkaas dabcan ku habaysan oo lagu configuration lagu sameeyey DHCP-ga ayuu si toosa u soo qaadanaya IP address-ka marka dhab ahaantii halkaasaan kusoo gabagabeynayaa casharkeena xiisaha badnaay waa mar kale loo dhaafo wanaaglah tan iyo cashiradeena xiga haddii ilaha yidhaahdo waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu